waxaa maanta magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ugu qabtay munaasabad ballaaran oo dib loogu furi doono diiwaangelinta codbixiyayaasha gobolka Togdheer. Waxaa xafladaasi ka soo qayb galay wasiiro, komishineero, saabada gobolada Togdheer iyo Daadmadheedh, maayirka magaalada Burco, xildhibaanada golaha deegaanka, taliyayaasha ciidamada qaranka iyo marti sharaf kale. Waxaa ugu horreynba halkaasi ka hadlay gudoomiyaha komishinka gobolka Togdheer iyo komishineer Xuseen Barasaabka gobolka iyo maayirka degmada. diiwaan geliyaan oo maanta la doonayo inaynu diiwaan gelino waxa kamid ah qof kasta oo muwaadin ah oo aan hore u diiwaan gelin xaq ayuu leeyahay inuu maanta isdiiwaan geliyo qof kasta oo gaaray da'da qaangaarka ee 15 jirka asaguna wuxuu xaq u leeyahay inuu isdiiwaan geliyo qof kasta oo hal mar iyo in ka badan isdiiwaan geliyay kaarkiisii uu ka gubtay asaguna inuu isdiiwaan geliyo ayuu xaq u leeyahay dadkii isdiiwaan geliyay 2016 2021 diiwaan geliyay aynu soo qabanay ee aan kaararkoodii qaadan ayaguna way isdiiwaan geliyeen qof kasta oo haystay shahaadadii aynu siinay asaguna maanta wuxuu xaq u leeyahay inuu isdiiwaan geliyo waxa kasta iyaduna qofkii kaarku ka lumay fursad wuxuu u haystaa inuu xogtiisa kaysan inuu la wadaago komishinka aan ku adkeynayaa bulshada reer gobolka Togdheer inay codkooda gobolka Togdheer magaalada Burco iyo dhammaan degmooyinka kale ee Oodweyne iyo Buuhoodle iyo dhammaan deegaanada hoos yimaadaba diiwaangelintu waxay ka bilaabmi doontaa 28 bisha waxaan leenahay reer Burco in badan baad sheegateen magaaladii ragga waxaa la idinka sugayaa oo la idinka fadhiyaa inaad ismuujisaan oo aad kaarka qaadataan qof kasta oo kaarka qaata markaa wuxuu xaq u helayaa inuu doorashada soo socoto codeeyo dhammaan gobolka Togdheer waxaan leenahay inuu diyaar garowno diiwaangelinta dhanka kale waxa halkaasi fariimo muhiim ah bulshada uga diray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed gudoomiyaasha gobolada Togdheer iyo Daadmadheedh mayrada degmooyinka Burco Oodweyne iyo Buuhoodle iyo sidoo kale xubno ku hadlayay afka xisbiyada wadani iyo wicide mayrada waxa weeye dahooyada bulshada dadka ugu badan ka qayb qaadanaya ama ka howlgalaya waa mayrada waxaan ku buurinaa shaqada meel stage joogaan suuqyada inay kaarka qaataan si loogu booriyo bulshadeenu ay qaar u qaadato oo bari u codayso qof waliba meesha uu jecel yahay codka uu helo horta waa muhiim qofka in la yiraahdo horta marka hore codka hel hadaadan cod helin aadna xuquuqdaada waad iska dhintay xuquuqdii qarankana waa dhintay labadii xuquuqood way ka maqan yihiin waxaan ku boorinaynaa degmooyinkii aanu mas'uul ka nahay iyo kuwa kale inay kaarka qaataan maanta halkan ku daafuraynaa inaanu dadkeena ogeysino guud ahaan inay furan tahay diiwaangelintii codbixiyayaasha isla markaana ay u furan tahay 5 cid oo kala kaana dadkii aan hore isu diiwaangelin ama qaan gaaray ee aan hore u diiwaangashanayn ama aan hore isu diiwaangelinin oo dad cusub ah laba dadkii uu kaar ka gubtay laba jeer is diiwaangeliyay dadkii uu ka lumay kaar ee aan maanta gacanta ku haynin iyo dadka waraaqda haystay ee bergidooda waraaqa loo qaybiyay maanta ay kaarkoodii qaataan inay soo haysaneen inay kaar sitaan iyo dadka goob doorashada bedelanaya guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ugu baaqaynaa inay dhammaan isdiiwaangeliyaan gaar ahaan gobolka Togdheer taafurkii diiwaangelinta imaka aan isleeyahay ka bisha bilaabano aad iyo aad baan soo dhaweynaa barbarkay ka baxdaa waddankeena dareen baa la yidhi gobolka Togdheer ficil baa lagu yaqiinay ficilkaa lagu qiimay wuxuu ahaa in dadku ficil ay ku dhaqaajeen waxay doonayaan war maanta waxay taaganta ficil waa inaynu dadkeena soo gurro waa inaynu mataqaana goobaha keenno waa inayna sidaynu imika wax baxsanaa inaan u baxsanaanin aynu ka qayb qaadanno mataqaana sidaynu diiwaangelintaa qaybta la cadde oo gurro reer Togdheer guud ahaan Buuhoodle Burco iyo Oodweyne in aynu haddii ilaahay dadkeena iyo bulshadeena ku baraarujino inay isdiiwaan geliyaan dadku way tartamayaan goboladu way tartamayaan gobolka Togdheer il gaar ah lagu hayaa maanta waxaynu u baahanahay oo lagu xisaabtamaya tiro gobolkeenana waa gobol facweyn taariikh leh population badan ay ku nool yihiin
tartanna lagula jiro gobolka labaad ee ugu population-ka badan ayaynu nahay haddaynu afka ka sheegano wax macna inoo samayn mayso laakiin maanta ficil baa layna ka rabaa inaynu samayno walba inuu fadhiga ka kaco ayaa la doonayaa lixda maxay ahaateenay loo qorsheeyay inay isdiiwaan geliyaan tilmaantay maanta leedahay mid xusbi maaha mid siyaasadeed maaha waxay tilmaanta ay leedahay waxa weeye in qaranka Somaliland isdiiwaan geliyo Somaliland waxa ku taala muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay in la doorto waxna uu doorto diiwaangelintan waxa lagama maarmaan inaan nabadgelyada ka wada shaqeyno hadhow marka xilliga doorashada la gaaro xaqa ololaha iyo codna siyaano xaq u leenahay maanta taa xaq looma laha waxa qaranka bulshada dadweynaha Togdheer ay xaq noogu leeyihiin inaan idhaahno moodaro isdiiwaangeli waxaan leedahay hal isdiiwaangeliyo oo qofkii kaar hore haysta ee kaarkiisii haysta isagu isdiiwaangelin maayo anagu nabadgelyada iyo kaar qaadashadaba wixii nagaga waajiba waanu ka qaadanaynaa marka xigta waxaan leeyahay dhammaan rinjiga Togdheer qaata diiwaangelinta